gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa booqasho ku tagay qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda si uu u korgalo sugidda amniga iyo nadaafadda maadaama lagu guda jiro u diyaar garowga toddobaadka xorriyadda. duqa magaalada Muqdisho waxaa kormeerka ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Engineer Cumar Cali Cabdi. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale dhowr xarumood oo ay ka mid ahaayeen xarunta gaadiidka iyo dhulbixinta dowladda hoose xamar, xarunta degmada warta nabadda oo heer gabagaba maraya, iyagoo warbixino kala duwan ka dhageystay gudoomiyaha degmada warta nabadda Seenab Xaabsi iyo injineerada dhisaya xarunta degmadaasi. waxa uuna kula dardaarmay in la dedejiyo furitaanka xaruntani si loogu qidmeeyo bulshada reer warta nabadda. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish iyo ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa booqday tuulada ciyaaraha ee Stadium Muqdisho oo meel gabagaba ku dhow furitaanka garoonkaasi oo aan lagu ciyaarin muddo 20 sano ku dhow. Mas'uuliyiinta ayaa kormeeray dhowr qeybood oo ka mid ah Stadium Muqdisho xilligaasi oo ay ka socotay howlo lagu dhameystiraya hirgelinta garoonkani oo muhiim u ah isdhexgalka bulshada iyo bilicda caasimadda. waxaana xusid mudan in garoonka tuulada ciyaaraha la hirgeliyay 1978 isla markaana lagu qaban jiray ciyaaraha kala duwan ee dalka iyo kuwa heer caalami ah. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.